Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan asxaabteena youtube-ka ku xiran baarka 250 waa idin salaamay. Kooxda kubadda cagta Barcelona kulan ka tirsan horyaalka La Liga dalka Spain ayay ciyaartay 5-0 ayuu ku xasuuqday kooxda kubadda cagta Deportivo Alaves. Goolasha waxaa dhaliyeen Ansu Fati, Messi oo 2 gool ah, Suarez, Nelson Semedo. Messi xilli ciyaareedkan horyaalka La Liga goolinta wuxuu ka dhaliyay 25 gool isagoona caabiyay 21 gool. Wuxuu soo barbariyay Xavi Hernandez ayuu dhaafay. Messi iskoorkaas ayuu caawa dhigay in 21 gool uu ka caawiyo horyaalkii caawa soo dhamaaday ee horyaalka La Liga dalka Spain. Barcelona kulankii ugu dambeeyay ee La Liga ayay ciyaartay. Barcelona hal tartan ayay xilli ciyaareedkan ku jirtaa, waana UEFA Champions League waxaana la ciyaari doontaa kooxda Napoli 8 Agoosto. garoonka Camp Nou Stadium ayaa lagu ciyaari doonaa. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. Inta muuqaalka xiga isku arki doono, sidaas iyo nabadgelyo.